libaaxii bedelay taariikhda islaamka xilli ay dunida islaamku ku jirtay daciifnimo, kala daadsanaan iyo rajo beelsada maanta oo kale. Alab Arslan oo magaciisu dhalashada ahaa Mohammed bin Daad wuxuu ahaa suldaankii labaad ee boqortooyadii Saljuuqiyiinta, wuxuuna caan ku ahaa hogaamin ciidan oo aad u xooggan. Qarnigii 11aad dunida islaamku waxay gashay marxalad isbeddel weyn. Bartamaha Aasiya waxaa ka soo baxay qabiilo Turki ah oo loo yaqaanay Saljuuqiyiinta, kuwaas oo awood militari iyo hami siyaasadeed ku yeeshay Khuraasaan iyo Faris. Hogaamiyihii sida dhabta ah u gaarsiiyey boqortooyadaas heerka caalamiga ah wuxuu ahaa Alab Arslan. Alab Arslan waxaa loola jeedaa libaaxii geesiga ahaa. Bilowgii xukunkiisii, Alab Arslan wuxuu talada la wareegay 1063 milaadiga, geeridii adeerkiisii kadib Toghorberg oo ahaa aasaasihii awoodda Saljuuqiyiinta. Markii uu kursiga fuulay, boqortooyadu ma ahayn mid si buuxda u xasiloon. Waxaa jiray loolan qoys iyo mid kacdoon goboleed. Si kastaba ha ahaatee, Alab Arslan wuxuu muujiyey geesinimo iyo xeelad dheer, wuxuuna awood u yeeshay inuu mideeyo qaraabadiisa iyo taliyayaasha hoos yimaada. Door weyn waxaa ka qaatay wasiirkiisii caanka ahaa Nidaam al-Mulki oo ahaa nin caqli iyo nidaam ku caanbaxay. Isaga ayaana dhisay xanaan maamul oo mideeyey dhul ballaaran, kana dhigay boqortooyada mid ku shaqaysa kala dambeyn iyo qorshe fog. Ballaarinta dhulka iyo awoodda xukunka Alab Arslan wuxuu ku suntanaa ololayaal militari oo taxane ah. Bariga Dhexe wuxuu xoojiyey gacanta Saljuuqiyiinta ee Khuraasaan isaga oo ka hortagayay khatar kasta oo ka imaan karta qabiilo ama dowladihii deriska ahaa. Galbeedka iyo waqooyiga, indhihiisu waxay ku sii jeedeen dhulka Armenia. 1064 milaadiga ayuu qabsaday magaalada Ani, taas oo ahayd caasimadii hore ee Armenia, loona arkayay magaalo adag oo difaac leh. Qabsashadeedu waxay muujisay awoodda militari ee Saljuuqiyiinta iyo xukunka Byzantine inay halis ku jiraan. Dagaalkii Manzikert 1071, dhacdadii ugu weyneed dunida, waxayna timid 26 Agoosto 1071 milaadiga. Boqortooyada Byzantine oo uu hogaaminayay boqor Romanos waxay isku dayday inay joojiso horumarka Saljuuqiyiinta. Labada ciidan waxay isku heleen Manzikert. Dagaalkaasi wuxuu noqday mid taariikhda bedelay. Xeelada ciidan ee fardoolayda Turkida iyo weeraro degdeg ah ayaa jebiyey safka Byzantine. Ugu dambeyn, boqor Romanos waa la qabtay, arrin aad naadir u ahayd xilligaas. Waxaa la sheegay in markii boqorka la horkeenay, Alab Arslan uu si sharaf iyo karaamo ku jirto ula macaamilay oo ula dhaqmay halkii uu dili lahaa. Wuxuu la galay heshiis, kadibna wuu sii daayay. Ficilkaasi wuxuu muujiyey isku dhaf geesinimo iyo siyaasad degan oo lagu yaqaanay. Guushii Manzikert waxay albaabka u furtay Turkida inay si tartiib ah ugu fidaan Anatolia. Taas ayaana mustaqbalka u horseeday in dhulkaasi noqdo mid islaami ah oo Turkida degaan. Arrintaas oo qarniyo kadib saldhig u noqotay quwadihii ka dambeeyey maamulka gudaha iyo nidaamka dowladda. Inkasta oo uu ahaa suldaan dagaalyahan ah, Alab Arslan ma ahayn nin ku koobnaa seefta. Wuxuu fahamsanaa in boqortooyadu lagu ilaaliyo nidaam iyo cadaalad. Nidaam al-Mulki ayaa hirgeliyey nidaamka Iqta oo askarta lagu siin jiray dhul ay ka qaataan canshuur si ay u joogteeyaan ciidanka, iyaga oo aanan khasnada dowladda ula saarin. Sidoo kale, xukunkiisu wuxuu taageeray culimada iyo madarasooyinka Sunniga ah, taas oo xoojisay midnimada diimeed ee dhulka uu maamulayay. Waxaa la aaminsan yahay in xasiloonida gudaha ay kaalin weyn ka qaatay guulihiisii dibadda. Geeridii lama filaanka ahayd 1072 isagoo ku jira ololo ciidan, Alab Arslan wuxuu la kulmay dhacdo lama filaan ah. Maxbuus uu qabtay ayaa si kedis ah u dhaawacay, wuxuuna u dhintay dhaawacaas. Geeridiisu waxay timid isagoo jira 42 sano. Marka loo eego da'diisa, saameynta uu reebay. Kadib talada waxaa la wareegay wiilkiisii Malik Shah,
kaas oo sii ballaariyey boqortooyada ilaa ay gaartay heerkeedii ugu sareeyay. Xukunka Alp Arslan wuxuu ahaa 9 sano oo taariikhda Islaamka iyo ummadda Yurub bedelay. Wuxuu mideeyay dhul ballaaran, jebiyey quwaddii Byzantine ee Bariga Dhexe. Wuxuu furay waddo cusub oo Anatolia u horseeday isbeddel dhaqan iyo mid diimeed. Marka la soo koobo, Alp Arslan wuxuu ahaa suldaan isku darsaday geesinimo dagaal, siyaasad heldheer, maamul nidaamsan, dulqaad iyo sharaf marka cadowga lama caamilayo. 9kiisii sano ma ahayn waqti dheer, balse waxay ahaayeen sanado raad qoto dheer ku reebay taariikhda dunida iyo midda Islaamka ee Bariga Dhexe. La soco qaybta 2.